he's from Somalia, I'm a South African, and we both together share the same thing. We love each other, so no obstacles. The only thing we had to do, we adjusted because it's different cultures and it's a different religion. My family is a Christian. maxaa maanta u aroosaysa gabar Soomaali ah ma duruuf dhanka dumarkii oo wadankan ku yara jirto ma adiga jeclaaday gabar aan Soomaaliina guursato maxaa sababay in gabar ajnabi ah guursato kulan wanaagsan daawadayaal waxaan ahay Cabdikariin Mursal ku soo dhawaada SBN Somali TV markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya meelihii ay u qaxeen dadka Soomaaliyeed waxa kamid ah Koonfur Afrika halkaas oo ay tageen dad fara badan oo Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro badankoodna ay lab ahaayeen dumarkana ay aad ugu yaraayeen tan iyo maanta dalka Koonfur Afrika waxa laga dareemayaa inuu ku soo badanayo guurka u dhaxeeya wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha South Africaanka mar aan booqday magaalada Durban ayaa waxaan si kidisa ula kulmay goob uu ka socday aroos u dhaxeeya wiil Soomaali ah iyo waliba gabar South African ah waxaana ii suura gashay in aan kala sheekaysto guurkooda maalintaas dhacayay iyo waliba marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray waa kan barnaamijkaas oo inoo bilaabma daqiiqada kadib waxaana loo xaqiijiyay in halkan loogu dabaaldegayo maanta arooska wiil Soomaali ah oo maanta guursanaya gabar South African ah oo horey u haysatay diinta Masiixiga balse hadda qaadatay diinta Islaamka waxa inoo suura gashay inaan helno Maxamed oo ah arooska wuxuuna inaga ogolaaday inaan la yeelano waraysi ku saabsan arooska maanta halkan ku dhaxmaraya isaga iyo Leila محمد محلو قدر أبراد مكرم محمد نور جبريل محمد نور جبريل بل وحد نوغ شيكيسا قابكي او كوبلاب مي حريركا لمانتا هذا أروسيسو ما شاء الله حريركا نحب لودي لو ذكون إله توانك صح حريركا بلودي بيشي لحد تاريخ شاني توان وقت قابكو كوبلاب مركا أروسيسو قابكو كوبلاب أنا إيدا horta waxa soo baranay meel shaqo meel shaqo soo baranay kadib meeshan isku jeclaanay waa muslimiinta waxaan guursaday say diinta aad u qabsato diinta islaamka isfaan oo ku adkaato hadda kala wad abaro wad joognay iyo saasay tahay madrasada aqoonsiga diinta baratay quraanka isfaan u baratay hadda teeda kalena waxay akhristaa waxay baranaysaa dhakhtarnimada hadda waxay rabaa inay dhamayso kullu insha Allah munaasabada arooska ayaa u muuqata mid ka duwan kuwii hore oo waxaa halkan ku kulmay dad kala dhaqan ah oo cidba si ay arooska u dhigato waxaa jooga oo goobta ku sugan ehel iyo saaxiibo ka kala socda labada dhinac isla halkan waxaa kaloo laga dareemayaa farxadda arooska waxaana ka wada qayb galaya Soomaali iyo South African haddana waxaa muuqanaya in farxaddaasi aysan ahayn mid dhammaystiran maadaama aan la ahayn dhaqan wadaag meel isugu yimid oo dhaqan ahaan waxaa lagu kala duwan yahay qaabka aroosyada loo dhigto iyo ciyaaraha lagu soo bandhigo munaasabadaha aroosyada Leila Maxamed waxaa hore u dhaxmaray jacayl aad u daran kaas oo sabab u noqday inay isguursadaan Let me say, like, when he came in my life, I needed someone who's going to show me the life. And he came and bring me the light. Although I was praying, saying, please, God, you see my life how it is now. And when he came on, everything, I said, Alhamdulillah, I got him. Now, I don't think if there is any problem, I know that I can't live. Maxamed ayaa ii sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay nolosha cusub ee uu la wadaagayo Leila oo ah gabadha South Africaanka ah ee uu jeclaaday waxaana uu ku tilmaamay in muhiim uu yahay isfahamka labada qof dadka qaar ayaa aaminsan in qof ajnabi ah oo la guursado ay la micno tahay iyadoo laga tagay dhaqanka suuban ee Soomaalida halka qaar kale badanna ay u arkaan in guurka uu qayb weyn ka yahay isdhaxgalka bulshooyinka
islamarkaana uu yareyn karo dhibaatooyinka loo geysto Soomaalida dalka Koonfur Afrika. fahamka dhaqamada kala duwan ayaa ah caqabadaha ugu horeeya ee qabsada lamaanaha dalal kala duwan ka soo kala jeeda ee isguursada, balse Leyla waxa ay leedahay taasi dhib ma lahan oo waxa ugu muhiimsan in qofba qofka kale uu ixtiraamo. No, that's why I don't see any problem, because if it's love, it's love, and it's nice sometimes to check the different, to mix the nations, you know, like he's from Somalia, I'm a South African, and we both together share the same thing. We love each other, so no obstacles. The only thing we're here to do, we adjusted because it's different cultures and it's a different religion. My family is a Christian, so I had to explain everything to them. Then they're gonna understand. But other than that, my family was understanding, so we just let it and we enjoyed the big day for us. Okay. What I gabadhan aad jeclaatay oo aad maanta guursanayso waa gabar South African ah, sida ii sheegtay waa gabar qoos ah. Maanta guuraad wada galeysaan, berita carruur ay imaan doonto. Adiga iyo gabadhan laba dhaqan oo kala duwan kala haysataan. Adiga Soomaaliya tahay oo dhaqan la yaqaan leedahay. Iyadana waa gabar qoos ah oo dhaqan la yaqaan leedahay. Sidee labadaas dhaqan ay ku wada jaan qaadi karaan? Say u jaan qaadi karaan horta mid hore waxaa leenahay horta diinta Islaamka inaan ku adkeeyo horta midi qasaanta si diinta Islaamka farayso inaan taa ku dhaqana ma dhaqanka iyada xageega tan horta mid koowaad inaan diinta Islaamka aan ku adkeeyo mar hore. Guurku ugu horeeyay maya waa soo guursaday gabar Soomaali soo guursaday 4 maalin ka soo dhalay Kenya joogaan dhamaantood. waa tahay maxaa maanta u aroosayay gabar Soomaali ah ma duruuf dhanka dumarkii oo wadankan ku yaraa jirto ma adiga jeclaaday gabar aan Soomaaliina guursato maxaa sababay in gabar ajnabi ah guursato? duruufna ma ahan waxa uu kalifay waan barashada inteeda kale waxa ay jaceelka ida saasay taadan waxa kala jirta dhaqankeeda aan jeclaad marka kood say dadku u dhaqmayaan sax dhaqan fiican leeyahay oo Soomaali xoogaa ka duwan ayadana. waa gartay Soomaali markaan guursanayna waxaa jiro arrimo dhaqan ah oo la soo maro sida gabadha reerkeeda waxba loo geeyaa dhanka wiilka waxbay geeyaan qaab loo wada xaajoodaa jiro. sidee ku wada xaajooteen adiga oo Soomaali iyo qoys waliba South African ah? sidee ku doontay gabadha sidaan ku doontay horaan marka muslimiin kadib ya waalidkeeda la hadlay horta hooyadeed way dhimatay aabaheedna ma joogo waxa jooga ayeeydad iyo hooy iyo awowgeed ay soo korsadeen iyagan la xajooday telefoon ma kula hadlay waxa la gabadha ku siinay laakiin taar 25 6 noo ima guriga noo ima sax kidibaan alaab waxaan oo laga dhibi jiray gabadha Soomaalida sidaan laga dhibo waa baxday waxa u tagtay reerkii gabadha waxa la fariistay maxaa dhahay gabadha ma ku siinay hadii wax iyaga loo geeyna waxa dhaqankooda waxa way awowgi waxa loo geeyna busta loo gadaa beeshina loo gadaa iyo waxa loo gadaa maradii ay soo saartaan kidib waa aad ma garanay sax kidib loo geeyaa adeerkii sida amal sax aydiidna waxa loo gadaa idana beesinga loo gadaa weela loo gadaa oo raashin oo saxanka hal saxan yaa loo gadaa gabadha aydeed oo sax waa gartay waalidkeeda kalena sida amal hal loo gadaa gurdadaadii way dhaqankooda amal korsaat. waa gartay marka reerkaas tagaysay oo gabadha aad doonaysaa kula socdo marka dad Soomaali ma wada socoteen oo odayaal ah oo adiga ka socda mase adiga kaliya inta baxda tagtay meesha? qaasan kaliya aan baxay shakhsiyadeeda aan baxay meesha tagay. waa tahay marka mustaqbalka aan ka hadalno carruurtaada maxay ku dambeyn karaan? taas Allahu a'lam waxay ku dambeyn doonaan. laakiin waad dareemi kartaa gabar ajnabi ah guursatay laga yaabo aad laftirkaada inaad Soomaali ku laabato gabadhan ay kulay Soomaali inay isku laabadankan ku harto maxaad isleedahay markaa fikirto kale? maya waxaan jeclahay sidoo hadda waqti badan inaan sii joogato bara wadankan ee iyada la baxawo. waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii toddobaadkan ee aan idinkaga soo gudbinaynay telefishinka SBN Somali TV waxaan ahay Cabdikariin Mursal wuxuuna barnaamijkeena toddobaadkan ku saabsanaa
guurka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba hablaha South Africaanka u dhaxeeya oo soo badanaya muddooyinkii u dambeeyay intaan markale ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.